قلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة بشهر مزاياه أكمل تفوق الشهور سواه بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد kusoo dhawaada xalqadihii aan kaga sheekeynaynay isla markaa aan dul istaagaynay qisadii nabigeena Muuse calayhi salaatu wassalaam waxay noo maraysay qisada in nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam hooyadiisa ayadoo Ilaahay ku kalsoon inay ku tuurtay sanduuq ay sameysay ayna dhaxgelisay cunugeeda nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam wabiga Niil markii ay ku tuurtay kalsoonida Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay tala saaratay kadib ayaa waxaa helay waxay Ilaahay uu leeyahay faltaqatahu aalu fircawn sanduuqa si lama filaan ah waxaa ku helay waxay tahay fircawn dadkii u shaqayn jiray bal dadkii ciidamadiisa ahaa fircawn ciidamadiisa aad bay uga cabsan jireen sababtoo ah waxay ahayd xukunkiisa ma uriikum illa ma ara aniga ila tashta anaa go'aanka leh wax kastoo aad samaynaysaan waa ina aniga ogaada xitaa hadda idinka ay shaqaynaysaan fircawn sanduuqii ayaa loo keenay markii ay fureen ayaa waxay arkeen wax cajiib badan waxay arkeen cunugaasina uma eko dadkii qibtiyiinta dadkii magaalada Masar degnaan jiray waxay isla markaa fahmeen inuu cunuga yahay wiil reer bani Israa'iil ah fircawn sida caadadiisa ahayd dhaqankiisa ahayd cunug kasto reer bani Israa'iil xitaa ha u ekaado hadayba tahay sanadka dilka in la dilo cabsi uu ka qabo inuu booskiisa ka banadaya ama uu ka qaadanayo ayadoo sidaas ay tahay fircawn xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Aasiya ayaa halka joogtay waxay ku dhahday waxay tahay fircawn cunugan hadilin qurratu aynin li walak إن قوبس بنون قنايا ويلكن سدا أقوحنا بدن سدا وناكسن لا تقتلوه هديواتين هدلن وانكبري يا فرعون نكيريوها هدلن بيكون هذا فرعون وحين أوصي دكتور قلبي فرعون أي ربط إلى دجزو عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وحابلغيا وإنا ويلكن كدغنا ويل وأنا نأنفعه أما إن قوبس أي نقطة هدلن فرعون إيو آسيا بالغو مقعاب جري حاسكي فرعون حاسكي سأد بو احترام جري صابتو أهوي عقل بدنيت وحكمت بدنيت وأود بدنيت أهدي أد بكرتي حكمت وحكستي أوليغيت تأوغي ذا وأقبلي فرعون إنو سنويل كاسي دلين سو عجيب معهن إنه موسى عليه الصلاة والسلام شله هويديسay wax cabsanaysa in la dilo maantana fircawn gacantiisa uu ku jiro isla markaa fircawn uu dhaafay uuna joogo guriga fircawn maxaa dhici doonta low حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل مع الله نو موسى هويديسا waxaa ka muuqda waxay tahay murug aad u badan waliwal aad u badan sababtoo ah waxaa ka maqan waxay tahay cunugeedii ay dhashay ayaa ka maqan 9 bilood caloosha ay ku siday ayaa ka maqan kadib ayaa gabadheedii waxay ku dhaaday waxay tahay naw Muuse walaashiisa baxaraadi naw Muuse raadi in qof uu helay oo suuq in laga warhaayay wix la mid ah oo dhan gabadhu way baxday waxay ogaatay ay aragtay naw Muuse inuu joogo guriga iyo qasriga fircawn lana raadinayo habeenay naas nuujisa kadib waxa dhacday waxay tahay
nabi muuse walaashiisa waxay dhahdeen miyaan idin sheega miyaan idin tusaa yacni qof habeenay ku fiican naasnuujinta kadib waxay tahay haa sababtoo ah nabi muuse dumarka oo dhan wuu diiday dumar walbaba wuu oon jiray kadib gabadhu way baxday waxay aaday waxay tahay hooyadeeda way u sheegtay waxay tahay hooyo nabi muuse wuxuu joogaa guriga iyo qasriga fircawn ayuu joogaa waxaana la raadinayaa waxay tahay habeenay si yacni ay u naas nuujiso hooyadii aad iyo aad bay u naxday sababtoo ah waxay ka baqaysay waxay tahay muuse inuu aado inuu helo fircawn haddana guriga fircawn ayuu joogaa way baxday ayadoo walwalsan guriga qasriga fircawn ayay aaday kadib waxay aragtay waxay tahay muuse ayay aragtay yaa allah ka warama dareenkaas cunug maantana aad ka walwalaysay hooyo aragtay ka warama ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay mataqaanan faradadnaahu ilaa ummih hooyadiisa ayaan u soo celinay si ay isheeda ugu qaboobsato sababtoo ah ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday mataqaanan inuu u soo celinayo wiilkeeda wuuna u soo celiyey ilaahi subxaanahu wa tacaala fircawn soo muusan sheegin awood soo muusan dhihin ana rabbukum alaclaa waa aniga rabbigiina ugu sareeya haddana cunugan oo hadhow baabi'iisa iyo burburkiisa sabab u noqonaya gurigiisa ayuu ku barbaaranaya hadda gurigiisa ayuu ku tarbiyeenaya sababta mataqaanan arrintan waxaa wata ilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay hadduu yidhaahdo kun fayakuun way noqonaysaa markay aragtay laabta ayay saartay nabi muuse oohinta dhan wuu joojiyey wuuna aqbalay cajiib bal waxaa cajiiba mataqaanan nabi muuse hooyadiisa lacag ayaa lagu siin jiray naasnuujinta ay naasnuujinayso ka warama wiilkaaga wuxuu ku barbaarayaa waxay tahay guri boqortooyo ayuu ku barbaarayaa adigana lacag ayaa lagugu siinayaa naasnuujinta aad naasnuujinaysid cunugaaga sababtoo arrintan ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa wato sababtoo ah nabi muuse hooyadiisa ilaahay ayay ku kalsooneed waxay dhahdeen waxay tahay yani markii ugu horeeya markii la amray cunugeed inay webiga ay ku tuurto markay samaysay ilaahi subxaanahu wa tacaala markaas ayaa wuxuu u ballan qaaday waxay tahay inuu u soo celinayo haddana ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu u soo celiyey ilaah wuxuu leeyahay mataqaanaan sababtoo ah yacni waxaan rabnay inay ogaato ayada ballanqaadka ilaahi subxaanahu wa tacaala dhab inuu yahay ilaahay haddii wax ku ballan qaado way dhacaysaa ilaah sameey oo keliya adiga waxa oo lagu leeyahay laakiin ilaah subxaanahu wa tacaala ballanqaadkiisa way imaanaysaa ilaah subxaanahu wa tacaala sida nabi muuse hooyadiisa uu nabi muuse ugu soo celiyey wuu awoodaa adigana xaaladahaaga iyo murugtaada oo dhan farxadaada inuu dib kuu soo celiyo ilaah wuu awoodaa cunugaaga caasi kaa noqday inuu baari kaa dhigo uu dib kugu soo celiyo ilaahi subxaanahu wa tacaala wuu awoodaa ilaahay wax walba wuu awoodaa ku kalsoonaaw isku dhiib ilaahi subxaanahu wa tacaala sababtoo ah qofka ilaahi subxaanahu wa tacaala ku kalsoon ilaahi subxaanahu wa tacaala qofka isku dhiibo ilaahi subxaanahu wa tacaala qofkii aamino ilaahi subxaanahu wa tacaala arrimihiisa dhan wuu u fududeeyaa ilaahay wax walba wuu awoodaa walaalayaal ilaahay waxaan weydiisanayaa sida nabi muuse ugu soo celiyo hooyadiisa anagana farxadeena iyo wanaageena iyo khayrkeena inta ka luntay inuu subxaanahu wa tacaala u soo celiyo iyo wix la mid oo dhan ku kalsoonow ilaahay subxaanahu wa tacaala markaas ay wax walba imaanaysaa insha Allah tacaala arintaas ayaan ka baranayna oo ah inuu qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kalsoonaado ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu isku dhiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala in xifdiyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل